maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meere Makaraan ayaa kormeer ku tagay suuqa weyn hanti wadaagga magaalada Jowhar oo maalmihii ugu dambeeyay ka socotay oo la nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda suuqa. Gudoomiyaha degmada Jowhar Mudane Cusmaan Maxamed Muqtaar Baare, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meere Makaraan iyo wafdiga kormeerka ayaa socdaal lug ah ku maray qaybo ka mid ah suuqa weyn ee hanti wadaag, iyagoo sidoo kale soo indheeyay goobaha ganacsiga. kormeerka kadib, gudoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Muqtaar Baare ayaa ka hadlay goobta, wuxuuna baaq u diray ganacsatada suuqa weyn ee hanti wadaag inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda suuqa. waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacab weynaha reer Jowhar baaqaas oo ku aadan howl hadda la qabanaayo, qaladna waa imaanaa, saxna waa imaanaa. waxaan rabnaa qaladka yimaado in loo dulqaato. waxaan rabnaa in maamulka waxay qabanaayiin in lagu garab siiyo, hadday qaldannahay in nala dhaho nimiyow saanay qaladka tahay, laakiin in meelaha laga qayliyo oo la caytamo foolxumo waaye. waxaan leeyahay walaalayaalow, waxaan samaynayn waxa waaye wanaagga magaalada, waxaan samaynayn waxa waaye wanaagga dadkeenna iyo deegaankeenna. waxaan rabnaa dulqaadkiina inuu badto. hadduu al yidhaahdo waxaan aan marna la aqbali doonin waddo qof ku jirta lama aqbali doonin, meel sharci dare ee kaama oggolaan doonno. danta guud waa in magaciisii aan xoogga wada saarnaa, aadna la raadaysiin. waddan kastoo dhisna oo arkaysiin waxaa dhisti ama fiicnaystay dadkiisa. noqda dadkii deegaankooda quruxsanaayay noqda. annagana waxaan magaciisii aan mar kastaba isla garab taagannahay in aan samayno wanaagga. Yusni Maxamed Axmed, Hirshabeelle TV, Jowhar.